waa wax iyadana aada loogu farxo in wanaag fara badan iyo sharaf fara badan iyo ay maaragtay kusoo kororto shaqooyinkii la hayay. waa wax aan aada u danaynayno in ummadda Soomaaliyeedna ay danaynayso. waxyaabaha soo kordhaya ee iyaguna khaldan ee garab socda arrimaha sida ninka odayga ah oo ambassadorka ama safiirka ahaa ee gobolada iyo degmooyinka dalka qaybo kamid a marayay oo beledweyne laga celiyay arrintiisa oo kaleeto in xoogga la saaro sababtii ay u dhacday iyo in maaragtay bal wax laga ogaado. ciddii markaa ku lug yeelataana sidii loola xisaabtami lahaa oo kaleeto in maaragtay iyadana la isku dayo. arrimaha gobolka Hiiraan kasoo kordhay dadka maalin walba la xasuuqayo, arrintaa kasoo kortay gobolka Shabeellaha Hoose oo Amisom oo aynu ku celcelinay runtii haddii marka loo daayo guddigaas baarlamaanka ee la leeyahay iyagaa la xisaabtamay Amisom iyo madaxdiisa, ee aan la dhaleecayn ee aan la cambaarayn islamarkaana aan hay-adaha xuquuqda iyo lagu muujinin qoraalada soo baxaya, wax badan oo runtii laga tegay ama laga tegi doono ayay ku darsamayaan haddaan la xusin lagu celcelinin dadkii dhibaatada ay soo gaartay ehelka iyo qaraabada u ahaana aan maaragtay iyaga laftigooda codkooda aan sare loo qaadin. waa muhiim arrintaa la sheegay la yiri maaragtay baaritaan ba Amisom madaxdeeda iyo guddiga baarlamaanku ay sameynayaan, haddana ma aha midaynu dhihi karno waa ku hadlayn karnaa. sababto waxay tahay nin la biilo oo mushaharaadka la siiyo oo aan lahayn karti iyo awood dhaqaale oo uu isagu aayihiisa uga tashado, waxaan aaminsanahay tan shacabkeena inaynan wax badan kaga hadlayn karin. haddana sidaas oo ay tahay wixii ay qaban karaan oo ay leeyihiin waa qabanaynaa, inaan laga hor imanine loo maaragtay facilitate gareeyo, lala shaqeeyo wixii lagala qaban karo, wixii looga soo horjeesan karo oo looga soo horjeedana in looga soo horjeesto iyadana waa wax iska maaragtay dabiici ah oo caadiin u dhacda. arrintaas mooshinka waxaan u aragnaa inay tahay wax muhiim ah in la xisaabtamo. meesha maalinba nin baa imaanaya, nin baa ka tegaya, in sidii guri qof leeyahay oo kaleeto la isaga maamusho oo inana aynu ka aamusno waxay igu muuqataa inay tahay khiyaanooyin qaran oo aynu qeyb ka noqonayno. waxaan aaminsanahay golaha shaqadiisu inuu wato si qarsoodi ah in gacan lagu siiyo baarlamaanku inay iyagu ay maaragtay dhexdooda ka xisaabtamaan, inay dowladda la xisaabtamaan, xubnaha golaha ee meelaha ku jiraana inaan lagu degdegin sidii maaragtay ragga qeybtood loo magacaabay inaan loo magacaabin, golaha dhexdiisana aan ballankii axdigii la galay runtii laga bixin oo aan dee la noqonin waxa Soomaali maanta kasoo kordhay oo kale. waa muhiim in golahani qarsoodi ahaado, in qarsoodi ku shaqeeyo. marxaladda waddankeena iyo awoodda naga ballaaran ee na dul taagan darteed shakhsiyaadka bannaanka taagan oo anigu aan ka mid ahay diyaar baan u nahay inaan bannaanka u taagnaano qadiyadda. sababto waxay tahay goobaha aan ku sugannahay oo ah goobo amni fara badan uu ka jiro, annagoo aan u diyaarsanayn inaan degdeg waddankii u tagno. sidaa